يقولي قبل برس علي قبل دي أن وحن وذا الشيء يصيرني بيدو يعني ساعة أفر سنة أنا بقول وكوع كدب واحد عضي يقول قبل دي أيا إساق ويل أي سي ساحيب جين ويقولوا وحكود عنيه ودي يعني هدو مريا وحدو مريا سادان مريا ونولاين ayaa iyagu 4 sano gabadhooda shaqsanay ayaa gabadhii saaxiibkii ayaa ka qaaday kadib waxa dhacday in uu iraa niyo saasiisa maxamed oo igu dhacday kadib aad baan la tacaajabay waxaan u qaadan waayay gabadh uu saaxiibka ay wada hadlaan sababta u geysay saaxiibkiisa kale kadib iyadoo saas ahayd oo aan aad uga murugooday oo aad uga naxay ayaa habeenkii aad juugiisa aan soo saxay waan soo rooreejiyay habeenkii anagoo isagoo faraxsan oo qoslaya ayaan kala tagnay kadib markaan guriga galay ayaan fikiray oo inuu hada saaxiibka tabta ku dhacday inuu ummadda Soomaaliyeed ku dhicin si ugu hortagnaa kadib anoo sheekad say ugu wareegayso ayaa habeenada ka mid ah ayuu shilkay soo garacay shilkan wada hadalnay ma fiicanta ma sha Allah ugu new hees baan doonayaan ku soo diray bal heesta sameeyay bal eeg way baan ku ri marka heesta caadiyan haystay ana sheekada qisada wata madaxa iga jirta kadib heestan bay soo diray waa heestan kadib eriyadii waan akhriyay مسوابا إسلا طبتي صاحبك يكون عادي واتن أورنسا ما كان كوب صوري ما دهنا فرحة دان كوب ما جاب شيء ما دي وأنا دان كوب بيسمى ما دمغ إذ كلام سكون مرة ما دارك أكتر أنا كمان ما دورن هل كذا جم أكتر ما نقدر كدب أريد ما كسر أخري يجوا بس لك صدي صاحبك يتي وريكس مسح ليلا كدب وان أمسي لحن كمان الصوص عاري isla maalinkii waan talnay muuqaalkeeda duubnay saameynta ugu badan ee xataa aan ugu soo noqotaa waxaad arkaysaa TikTok iyo marka adwaanka inta saameynta u tagin adwaanku isagu qisadu ku sameeyay marka waxa uu ka haysta sababta mise maxay tahay niyo adwaan shirkad ma weydiin waayo laakiin waxaan u arkay sidaan maskaxda ku hayay inuu adu taasoo qaaday waayo saameyn badan bayaa dad badan bay waxa weeyaan oo qaarkood ooyayaan baa isku soo koobay marka aad tagto baraha bulshada kala duwan la isticmaalo oo Soomaaliya haween iyo rag baa isugu jira ma la oran karaa codkii maama iyo heestii uu soo saaray waxay damac u geysatay kale dad badan oo bukaan socod ahaa oo ishka iyo caashaq waxa weeyaan oo ahaa ugu jiray bukaan socod u ahaa oo dhibane u ahaa ishka iyo caashaqba imika waxa weeyaan doobihii hore uu dib ugu soo kiciyay oo nabaradu ku damqay codkaagaas niyoomay waxaan aaminsanahay inay dadka dhaawaca iyo dadka soo socday taasi ku dhici doonto inay dawlad tahay waay Soomaalidu wali ku sheegay wada bukaan waay wada bukaan socod bal heesta maamo heesta bal iyadoo oo bilaa musiya bal noogu celiyo kinga makan kugu sooray madahanan farxadan ku magaabshay maadayn wanadan kugu miisay madmaqan wanadan kugu miisay madmaqan kalaan isku maranay maadoran abidka adan ka marmay maadoran halkaadiga magtay maangaran halkaadiga magtay maangaran meeshan وسوقي ماذا إيمان وحنكوغو ما هاد الشمد فلي نلقى هذه نفتي ذا ماذا مريم أقوفكي أكمودي ماذا نقول قفكي أكمودي ماذا نقول وكا أصبحوا بحثت هاي محمد ودك وحيش بيدينيا هرتا مصومالي دا وحويان dad iska xiisoora ah oo toddobaadba heesta soo baxday cusub la qeyrooda mise abwaan shilka
ayaa heestan waxa weeyaan angal aan abwaanada iyo hal abuurka kale ee Soomaalidu iska taagay oo loo baahnaa bulshada ay baahi u qabtay نومي أنا وحنا هاي شلكة إنه فرشحن عصب ونها أبو رمضة كدوان ولين صوبتها سنة كينسة هاي تسامية لطو واي هاي سنة لص عنا واحد كم التحي كوحدة حديقها فنكا Soomaalida waqtigan على كوش day حبان horta adigu fanka inta ku jirtay imika waxa weeyaan oo shaqada fanka loo والله dadku wax moodaan in badan ku jiray laakiin ka ku dhawaad 12 bilood oo ku jiraa 12 qura oo bilood ba fanaan tahay waaya de kulli dhalinyaro baa tahay oo waxa weeyaan aad u dacaya horta marka laga tago shaqada fanka xirfad kale ma leedahay hay sports kana isku fiicanay sport ma tahay 12 ka bilood baad fanka ku jirtay reaction badan baa ka soo noqday ama baan ilaahdee falcilimo badan baa ka soo noqday heestan ugu dambeysay aad qaaday waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama ugu saameynta badnaa falcilihaas hadda xasuusta waxaan ka xasuustaa waxaan arkay dad badan oo muuqaalo ii soo diraya aan anigii ku tacajabay oo sidii maxaa nin kugu watay dadka ugu weysay waxaan arkay waliba saameyntu waliba ha u badnaato dhanka dumarka waxa la soo diray dad caadi tacajub ku keenay caadi u ooyaya dumar badan oo barooranaya taniyow aniga hanteeda tacajub ilaahay ugu keenay de dabcan dumarka rag baa kaga oohisiyay bal dumarka ragga kaga oohisiyay maxaad ragga fariinta maanta u diraysaa ayta wallahi ragga waxaan u dirayaa aniyo dumarku marka koobaad haddana dumar jirin saabo mina qurqurux badnaanen waxaan talo weyn u dirayaa dumarka sahal laga daayo hal la ixtiraamo waa hooyadeen waa walaasheen waa kuween dhali doono يعني بوسكي نو تاغيين maanta hadayna dumar jirin halka uu meena soo istaagneen nin kasto qurux badan aad aragtaa ba nin kasto wanaagsan ba nin kasto maanta magaalada Hargeysa maal kule gabadhu ba ka dambeysay amba hooyadii ba ka dambeysay amba walaashi marka talada dumarka aan laga daayo dumarka la wanaajiyo dumarka ha loo roonaado taasan tala sinaya rag fankayga